إيا برواقة نمع الله وقبوبة التناسل مانو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا دودودا الحريرة دورك هوانك يكرم قاشة رمها النبضة دودودا جن وحاسك كاشر يتابعينتيسا وزارة رمها جودها دولة قبلة كجلمود هيد CBD دودودا جمان توحمرتكوا حبنا كتسن الربع هوانك قبل كالمود كواسوي كمديهين قدوميها ururka haweenka nabadda gobolka mudug xabiibo maxamuud cabdi koofuro gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug galmudug maymuun cali nuur geyfane gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo samsam maxamed colaad iyo xildhibaan fallis abshir guuleed oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo dadwadagan waxa intiisa badan aynu kaga hadli doonaa doorka haweenku ay ka qeytaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada maadaama sida loo yahay gobolkan mudug uu soo maray colaado badan isla markaana guulo badan laga gaaray haweenkuna ay laf dhabar u ahaayeen waxaan jecelnahay dadwadagan intuu socdo in ka qaybgalayaashuna ay aragtidooda nagu biirin karaan talooyinkooda iyo su'aalahooda ay weydiin karaan madaxda ama xubnaha panelka martida ku ah ee dadwadagan maanta ay ka qaybgalaya waa maxay caqabadaha hortaagan haweenka inay si buuxda uga qayb qaataan dadaalada nabadda waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug maymuun cali nuur geyfane maymuun waxaad faahfaahin naga siisaa bal aragtidaada ka dhiibataa maxaa hortaagan ama waxay jira caqabadaha ka hortaagan haweenku inay mar kasta ka qayb qaataan dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalada iyo meelaha ka baxsanba. بسم الله الرحمن الرحيم مركو الله سبحانه وتعالى وماذا علنايا وحن سلام يا تيم كبانلك يقول السجن دومي حبيبك دومي سنسح اللي هذا فلس يدادية برنامجك عبد الرزاق صحافة أنت ذكرى إدمانتون كقب قلياشة رمهانتي سؤال وحواي ومحي عقبات دهور تاجن هوين كإن النبض كقب قاطان هرتا عقبضوا ويبديهين لكن waxaan dhigi karnaa waynaha kin waayeen alxamdulillah ilaahay sababtiis iyo rafashada ku fadhinaa meesha inta badan waa aqeeda ahaan ama casri jaahili ay aaminsan yihiin ragga ama odayaasha dhaqanku inaanay haweenku door lahayn oo macnaheedu matalan maamaayo waxa jirta ay dhahan caado la rogaa cara allay leedahay nacam waxay caadaysteen inay haweenku aanay wax door lahayn sideeda banaan anaga waxaan nahay gabdho muslimiina dad muslimiin ah rag iyo dumarba doorkeena Allah subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay kitaabka Allah ayaan ku kaamilanahay oo ka buuxnaa laakiin doorka hadda aan ka hadlaynaa waa doorka bulshada dhexdeeda aan ku leenahay okay doorka bulshada dhexdeeda aan ku leenahay caqabadaha haystaa maxay tahay waa rag wax kala ma aha odayaashuna ma ogola inaan doorkeena qaadano gabdhaha iyo wiilasha ay dhaleen bal iska daa anaga haweenkeenan nabadda iyo barnaamijyada iyo gudoomiyaasha iyo wasiirada noqonayee gabadha iyo wiilka ay dhaleen bay inta badan aanay tartansiinin oo ay wiilka soo hormarinayaan haday tahay fursado shaqo haday tahay xilalka haday tahay qayb qaadashada bulshada oo ay rabaan inay gabadha gadaal u dhigaan marka barnaamijkaas la dagaalankiisi waan ku guuleysanay waanagaas hadda wasiirada ah waanagaas hadda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya waa gabar muxuu ahaayay ambassador noqdeen gabdhihii hadee waxa weeyaan meeshii dhahay waaye dad isguraaye waaye meeshii la yiri isla su'aashaas laftigeedii ayaa waxaan si kale u weydiinayaa xildhibaan fallis abshir guuleed oo kamid ah golaha deegaanka degmada gaalkacyo su'aashu waxay tahay maxay yihiin caqabadaha ka hortaagan haweenka in si buuxda haweenku waxaan ognahay inay door ka qaataan nabadeynta mararka qaar balse maxaa diiday inay si buuxda uga qayb qaataan maadaama kulamada nabadeed iyo dadaalada wacyigelin ee nabaddu aysan ahayn kuwa ku kooban magaalada gaalkacyo qaarkoodna loo aado meelo kale mararka qaar ay dhacdeen haweenka aysan ka qayb gelin kulamadaas meelaha fog lagu qabanayo marka maxay tahay caqabada ka hortaagan haweenka in kulamadaas ay ka qayb galaan meelaha fog lagu qabanayo nabadda looga hadlayo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قفلوا مصبك أيكو فدسو المهم حسنت عبد الرزاق هوينك إني كقعتان دور بوحة أما دميسترن نبضينتا عقبضها هرتاغن وقبضا وحوية لقن سوچرين
haweenku diin waa leeyihiin aqli waa leeyihiin aqoon waa leeyihiin shaqooyinka dadka nabadda idaacadda ka taaway laakiin waxa hortaagan oo caqabada ku waxay tahay dhaqankii hore oo ahayd gabar gurigeeda ha joogto reer gabar u talisay maamay waxa jirta ah reer naaga u talisay iyo maxaa la yiri dameer la saaray midna marsii raagaan erayaha jiray oo caado dhaqan ah waxa hortaagan marka waxay tahay dhaqanka oo aan aaminsanay inay gabar go'aan gaari karto ama is wax qaban karto waayahay aad u mahadsantahay xildhibaan Fallis Abshir Guuleed sidaan ognahay haweenka gobolka Mudug waxa jira urur la yiraahdo ururka haweenka nabadda gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug oo ay haatan madaxdeeda nagala joogto gudoomiye Xabiibo Maxamuud Cabdi Koofurow gudoomiye Xabiibo door intee leega iyo colaad xalintii iyo nabadda gobolka Mudug ka qaateen haweenka xasilinta gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug marka horeysa ilaahay mahad ayaan ku leenahay anaku waxa weeye hadaan nahay ururka nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug gabdhaha Puntland iyo Galmudug waan midaysanahay dad waxaan nahay maaragtay dagaal soo raadiyay oo muddo ku soo jiray colaad iyo dagaal ku soo jiray gobolkayaga waxaan ka qaadanay anagu kaalin weyn dhibaatadiina soo martayna dadkii ku guuleystay oo inay xaliyaan odayaasha ayagu gacantooda isku hor fariisiyaan keenay baan ahayn haweenkii dhex ordahayaan ahayn haweenkii nabadda ka shaqeynaya ayaan ahayn subax alla keen waxaan soo kalihi jirnay saaka inay wax dhacaan in kala to inaan carada dhex yaaci jirnay waxaan ka dhex gali jirnay odayaasha dhaqanka dadka la dhex galay baan nahay oo xoog ku dhex galay oo codsaday inaan anagu gartooda iyo waxay ku hadlaa inaan dhageysano kadibna marka ogaanay dhaliilahooda aan soo bandhignay marka waxa la rabaa wax kasta marka aad qabanaysid adoo ilaahay tawakkalaya inaad horta marka horeysa ogaatid meesha colaadu ka jirto oo fahantid sidoo kale waxa loo baahan yahay inaad tababar u leedahay inaad waaya arag u leedahay dhibku inuu adigu hore ku soo daashaday oo ku soo maray marka anagu waxaan nahay urur nabadeed oo waxaan nahay dhibku intuu soo daashaday muddo 30 sano ku dhawaad ah dhagahiisa ka dhawaaqayay waxaan dhagahayaga ku dhacayna waxaan ka sheekay karna ma ahan iyo hubkiina soo maray waxaanan ka bixinay waxyaabo aad u adag oo wacyigelin la yiraahdo dalka iyo dibadaba wacyigelinta waan soo qaadanay deegaankaygana waan ku difaacnay waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay deegaankooda u kacaan nabadda u istaagaan kaalin weyn ka qaataan gabdhihii raba inaan gacan qabano anagu tababaraan leenahay xirfadaan u leenahay ayakana waa garab istaagin haddii ilaahay yiraahdo meel kasta aan joognana diyaar baa u nahay nabadda meel kasta ka taagan inaan ka qayb qaadano waan mahadsantiin waxa soo kale barnaamijkan taabagelintiisa iska kaashanaya horta wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug iyo hay'adda CBD oo iyagu mudooyinkanba ka waday gobolkan Mudug dadaalo la xiriira xoojinta nabadda isdhexgalka bulshada iyo sidii xal looga gaari lahaa colaadaha ka jira gobolkan iyo sidoo kale sidii bulshada loogu tababari lahaa ka qayb qaadashada arrimaha nabadda Zamzam Maxamed Colaad gudoomiyaha ururka haweenka degmada Gaalkacyo maxay yihiin awoodaha gaarka ah ee u baahan yihiin haweenka in lagu xoojiyo ama lagu kordhiyo si sare loogu qaado ka qaybgalka haweenka ee arrimaha nabad dhiska marka koobaad Allah subhanahu wa ta'ala hadda iska leh noo ahaysiiyay kulankan quruxda badan leh oo aan saaka meeshan u joogno waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan quruxda badan leh ee looga hadlayo nabadda sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabtayga la sugan bandalka gudoomiye Xabiibo gudoomiye Maymuun xildhibaan Fallis iyo Cabdirasaaq oo barnaamijkan noo daadihinayay si lamida ururada haweenka oo ka soo qayb galay barnaamijkan iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo dhammaan cid kastoo barnaamijkan saaka u joogta ka soo qaybgalkiisa aad idin salaamaya saxaafadda assalaamu calaykum marka xigta haweenku inay maxay u baahan yihiin fursad ahaan inay u helaan ka qaybgalka barnaamijka nabadda waxay u baahan yihiin sabood ay u baahan yihiin in la sabood gareeyo u baahan yihiin haweenku la garab istaago hay'adaha ka shaqeeya nabadda dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo inta badan arrimaha nabadda ayadu qayb weyn ka qaadata sidoo kale waxay u baahan yihiin waxyaabihii ay nabadda uga qayb qaadan lahaayeen oo technicalka ahaa hadday noqon lahayd meelaha oo nabadda loo aado oo shaqooyinku ay ka dhacaan gaadiidkii ay ku aadi lahaayeen securitykoodii ha noqoto waxyaabihii ay u adeegsan lahaayeen oo sida saxaafadii oo kaleeto iyo mikrofoonadii iyo waxyaabihii technicalka ah u baahnaan lahaayeen
wax badan ay u baahan yihiin oo in laga sabood gareeyo haweenku diyaar bayna u yihiin nabadda iyo qayb qaadashada sababtoo ay tahay haweenka gobolka Mudug waa haween oo ay dhibaatooyin badan ku dhaceen in badan qaxay in badan dadkoodu iscuno islaayay cashar bay ka haystaan colaaduhu dhibaatada ay leeyihiin sidaas darteed marka ayadoo cid sabood ay ka helaan aysan jirin inay u taagan yihiin nabadda gobolkan laakiin haday heli lahaayeen waxaan dhihi karaa qayb weyn oo waliba aad iyo aad miisaan u lahay ka qaadan lahaayeen oo waxyaabaha culaysyada haysta laga sabood gareyn lahaa ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto ama hay'adaha ku shaqada leh in ay dadka ka sabood gareeyaan nabadda iyo isdhexgalka dadka inay midoobaan oo walaaloobaan ka shaqeeya sidii CBD oo kaleeto aad iyo aad u mahadsantahay Cabdirasaaq aad bay u mahadsantahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Gaalkacyo Samsam Maxamed Colaad wili barnaamijkeeni dood wadaaga qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa barnaamijkan ayaa waxa iska kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha galmudug hay'adda CBD xildhibaan Fallis Abshir Guuleed waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo inkastoo ay yar yihiin tirada gabdhaha ee ku jira golaha deegaanka degmada Gaalkacyo door aankii ay gabdhaha golaha deegaanka ka qaataan sida haweenka loogu wacyigelin lahaa nabad dhiska iyo dawlad wanaagga bismillaah su'aasha gabdhaha golaha deegaanka sidee uga qayb qaataan wacyigelinta nabad dhiska haweenka doorka haweenka Cabsaaqo sida wada ognahay sida u sheegtaba tiro yar weey haweenka ee golaha deegaanku hase yeeshee haweennimadeena ma aanu iloobin meesha waxa ku joognaa haweenimo qoonda haweena ku joognaa walow sida wada ogtahay haweenka iyo ragguba ay ku imaadeen 4.5 oo qabiil iyo oday ay dabada ku hayaan oo go'aanka gaarista maanta dawladaha ilaa golo deegaan ilaa dawladda ugu sareysa go'aanka gaaristiisa oday uu ku jiro qalin oday lagu yimid qabiil ku timid oo aad ku imaanin haween madax bannaan iyo dhalinyaro madax bannaan iyo qof madax bannaan aysan jirin haddana haweennimadeena waa shaqeynaayo wacyigelinta haweenka الحمد شكر mahad haweenku ka dawlad hoose ahaan gabdhahan golaha joogna waxa ku wacyigelinaa inay doorarka dawladda hoose soo mara maadaama ay dawladda hoose wax walba yimaada ay ayada soo marayaan inay haweenku doorkooda ka helaan sida wada ognahana haweenka nabadda waa la shaqeynaa ka dawlad hoose ahaan wax walba nabadoo yimaadana haweenka waa ka tixgelinaa marka intaas anagu ku dhiirigelinaa inay haweenka doorkooda ay meeshaas ka maqnaan haweenka nabadda u taagan haweenka nooc walba ay u taagan inay haweenku door ku yeeshaan waxa moodaa inay ku guuleysanay intii tabarteena taas wayahay oo maasanta xildhibaan Fallis Abshir Guuleed waxa jira sidoo kale dhacdooyin badan oo la xiriira haweenku in aysan qaban karin shaqooyin fara badan waxyaabo badan diintuna xeerar u sameysay marka haddaba sidee la isku waafaqin karaa dhaqankii iyo sharciyada diinta islaamka marka loo eego arrimaha ka qaybgalka nabadda haweenka Maymuun Cali gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug see la isku haleelsiin karaa diinta islaamka maadaama ay haweenka ka xarimtay arrimaha qaar iyo barnaamijkan ka qaybgalka bulshada horta anaga mar horena waan ku sheegay haween muslimiina ayaan nahay diinta islaamku xad bay noo samaysay waxa kamid ah gabadha muslimada ma noqon karto hogaamiye ama madaxweyne imaamna ma noqon karto laakiin doorka bulshada haddii ay dhowrsan tahay oo asturan tahay inay ka qayb qaato wax ka reebaya male sababta waxaaba la ogaadayba 32 sano inaan Soomaaliya noolaan lahayn oo burburi lahayd haddii aan haweenku jirin markii dawladdii dhexe burburtay waxa dalkii iyo u istaagay iyo dadnimadiiba waxay ahaayeen haween waxa wax baray dadkii muxuu ahaayay haween dhalinyarada hadda wasiirada ama agaasimayaasha ama Soomaaliya daadihinaysa waxa soo samata bixiyay haween marka hadaanay jirin waxayba noqon lahaydba laakiin haweenka diinta islaamka wax badan ay naga reebtay mana ku jirno wax diinta islaamku naga reebtay laakiin doorkii bulshada ayaan wadnaa si lamid ah Cabdirasaaq oo soo ogtahayba kulli shiiqa tahay ma ku dhahay laakiin shiiqa ku dhalay nabad waxay ka mid tahay waxyaabaha ajirka laga helo al-islaahu bayna naas
oo diintu ay soo dhaweysay marka wax diintu naga reebta ma bahaynaba amaasanta aad waa mahadsan tahay Maymuun Cali Nuur waxa jira sidoo kale in haweenku haatan ay ka qayb qaataan arrimaha nabadda iyo gobolkan iyo wada xaajoodida ka dhacaya marka sidee loo sii xoojin karaa in haweenku ay goobaha dhammaan looga hadlayo nabadda iyo xasiloonida gobolkan iyo ka hortagga colaadaha haweenku ay goobjoog ka noqdaan iyagoo doorkooda ka qaadanaya sidee loo xoojin karaa ama loo bedeli karaa waaqiyo badan oo jiro ah in haweenka meelaha qaar aan laga qayb galin gudoomiyaha ururka nabadda haweenka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Xabiibo Maxamed Cabdi Koonfurow barnaamijkan maanta aan ka hadlayno waa barnaamij muhiim ah bulshadana muhiim u ah waxa weeye haweenka haddaan loo yeerin meel kasta iskama aadaan meeshii colaad ka socoto annaka aadna oo go'aansana meeshii aan colaad ka socono wacyigelin baan ka bixinaa oo sidii looga digtoonaa lahaa ayaan ka wacyigelinaa dadka meelaha colaadu ka taagan tahay goobaha lagu shirahayo haddii nalkaga yeerana waa tagnaa haddaan nalkaga yeerinna waa tagnaa sababtoo ah dhibaato annakana soo gaaraysa weeye ubadkeena soo gaaraysa weeye hoygeena soo gaaraysa weeye marka annaka semberi waxaan isku taxalluujinaa meel kasta oo nabad looga hadlahayo inaan goobjoog ka noqono hay-aduhuna badanaaba wana tixgeliyaan sida CDB oo iyaduna semberi nala shaqaysa oo hay-adna garab taagan ah wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kaleeto iyaduna waa garab taagan tahay way nala shaqaysaa dhammaan waxaan maaragtay jecelnahay bulshada qaybaheeda dhan sida inoo tixgeliyaan ayaan aad iyo aad ugu qanacsanahay oo u jecelnahay walaalahaya waan tixgeliyaan waa la shaqaynaa odayaasha dhaqanka sidoo kale waa la shaqaynaa waana tixgeliyaan goob kasta oo colaad ay ka taagan tahayna waxaan u nahayba kuwa barka u horeysa ayagu ku dhawaaqa in maaragtay loo istaago oo u istaagaan tuulooyinkan tagnaa degmooyinkan tagnaa meel kasta oo wax ka taagan yihiin annagu kuwa dhex taagan baan nahay kuwa ka dhex shaqaynayaan nahay nabadda gobolkaygana aad iyo aad ayaan jecelnahay inay u raagto oo nabaddu noo xasisho diyaar baana u nahay meel kasta oo colaad ka jirto inaan tagno waana aadnaa haddii ilaahay yidhaahdo cabdirasaaqo waxaa jirta hadda ka hor gaalka ay xilliyadii dagaalka aadka u socday oo ahliga nagu haystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga qaboojiyey dhagahayaga waxa adag oo aan weligan arago hubka adduunka ugu casirsan la isku adeegsanayay reer miyi dirre ayaa markay wax laga dilo sa u soo ordaan magaalada soo gali jiray magaalada markay soo galaan fooday nagu kici jireen fooday nagu kiciyaan ayaa annaguna la salkici jirnay haddaan marka laga hortaginin dhibku markuu dhaco gurigaaga ayuu imaanhayaa marka waxa weeye waxaan aadi jirnay markii dambe too naftuna qabatay tuulooyinkooda ugu tagno miyiga ay degan yihiin baan wacyigelin kusoo siinay iyo tuulooyinka ay deganaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naga qaboojiyey aad iyo aad waa la socotaa hadda ka hor waxaan tagnay godad baan tagnay gacna falaan tagnay waxaan tagnay bahalka jariiban waxaan tagnay qarqooro dheer waxaan tagnay bitaale dhammaan tuulooyinkii dadka ay ka soo imaan jireen oo naga soo aadi jireen ayaan tagnay wacyigelin ayaan ka soo bixinay ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo gabdhaha labada dhinac annagoo maamul ma kala sheegno gabdhaha nabadaan nahay labada dhinac labada maamulba ka tirsan wacyigelinta aan soo bixnay ilaahay waa nagu qayray dib dambe fooda noogama imaan meesha aan tagnay tuulooyinka aan tagnay kuwa kale hadda ka taagana waxaan jecelnahay saas kale inaan tagno weliba qaar waan tagnay inta noo dhimanna haddaan tagaynaa insha allahu kariim waa mahadsantii aad bay u mahadsan tahay Xabiibo Maxamed Cabdi Koonfurow dabcan su'aashaas waxaan u garanay colaadahani waa kuwa ka imaan jiray dhulka miyiga dhan walbaba kabacdina magaalada soo gali jiray taasina colaadda magaalada ka abuur jirtay laakiin dadaal aad samaysan aad u baxdeen miyigii aad wacyigeliseen waa hagaag Zamzam Maxamed Calaad gudoomiyaha ururka haweenka degmada Gaalkacyo waxa jira in colaadihii ka dhacay magaalada tan Gaalkacyo ay dhibaatooyin fara badan bulshada u geysteen ama raadadkeedii ay weli muuqdaan dhibaato intee leeg ay haweenka gobol Gaalkacyo kala kulmeen dagaaladii ka dhacay meeshan oo nabadda xilligani dagaal la gaaray kadib lagu guuleystay in la xalliyo waxa bal faahfaahinaysa saa muddadii ay ku sugnayd Gaalkacyo colaadihii ka dhacay saameyntii haweenka ku yeesheen saameyntii ay ku yeesheen haweenka gobolka Mudug dhibaatooyinkii iyo dagaalkii soo noqnoqonayay saameyntii ku yeesheen waxa kamida waxa la dhahay hal nin quraan dheelmaal iyo dhanno uma fiyooba haweenka Soomaaliyeed xuduud ma leh difaac ma kala galaan ma kala maataan haweenka Soomaaliyeed waa warshad meel kasta oo laga guursado dhinacyada isdagaalaya kala qaba hooyooyin u wada yihiin
walaalay u wada yihiin waalid u wada yihiin dhibaatada saameynta markii laga hadlaayo waxaa dhacday gabar in walaalkeed la dilay wiilkeediina la dilay labadoodiiba tacsidoodii ay guriga ku wada dhigtay saameynta waay sababtoo ay tahay labada dhinacoo isdagaalayso midna way ka dhalatay midna way dhashay ninkeedii baa la dilay waxaa walaalkeedaa loogu aaray walaalkeed baa la dilay ninkeediyaa loogu aaray wiilkeedii baa la dilay abtigiisaa loogu aaray meelay aado iyo meelay u baxaan bay waayeen haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka gobolka Mudug inay haweenka gobolka Mudug ayadoo cid sabood garaynaysa aysan jirin nabadan inay u istaagaanna waxyaabaha sababay ka mid tahay oo ay ku socdaan kabalaan ay ku socdaan meel kasto ay ka gaaraan hooyo hay dilin waxaa jirtay sheeko caan baxday oo xildhibaanadayda hadda dhinacayga fadhida Fallis Abshir Guuleed ay miidiyaha inta badan ku jirto oo ah muxuu ahaa ninkaygo maxay walaalkay hayga dilin aabo abti hayga dilin abtiyo aaba hayga dilin marka saameynta intaas la eg baa nagu dhacday waxaa nagu dhacday in oo markaan qaxnay jiridii midaan ku qaxnay oo aan qabiil ahaanta ugu qaxno meelihii ay joogaan aan ku qaxnay iyo kuwii aan ka soo qaxnay hadii naga daba yimaadaan midna aysan dhaafaynin kii ku soo gaaraa ku cunayo ku kufsanayo geedaha hoostooda haweenkii ku dhalayaan ilmihii waxbarasho la'aan ku dhacday sidaad ogtihiinba ummadda Soomaaliyeed maanta 70% hooyooyinka waxay isku yihiin rujaal iyo nisaa isku ah hooyo iyo aabba isku ah hooyadii marka suuqi salaadii u shaqo tagi jirtay jaaday gadaa shaahay gadaa qudaaray gadaa hay wareerinay gadaa markii magaaladii ka qaxday oo geed hoostiis ay tagtay wixii oo dhan ma jiraan awalna kayduma oolin xoolo baadiyana ma lahayn ilmihii baa ka baahday marka saameynta iyo muxuu ahaa raad raaca ay nagu reebtay dhibaatooyinka soo noqnoqday oo gobolka Mudug haween badan oo reer Gaalkacyo ama reer gobolka Mudug ah qaar kamid ah tixay ka tiriyeen oo anigu aan kamid ahay tixaan ka tiriyay haween kale to waxa jiray saameyntii ku maal waayay oo hantidoodii ku bixiyay oo Allah u naxariistaan leeyahay Caasha Nuur Dheere gabar kamid waaye gabdhihii oo haweenkii nabad kamid ahayd way geeriyootay laakiin dadkii waxay ku jirta ku hanti beelay sidii u dhahaysay maanta ba lagu bixiyo maanta wada ha looga hortago maanta marka waxa kale to haweenka reer gobolka Mudug saameyn badan bay ku reebtay sababtoo ay tahay hooyooyinka ka shaqeynaya nabadda qaar kamida waxay ku waayeen waalidiintoodii iyo walaalahood bay ku waayeen waxa dhacday anigan hadda kula hadlayo Samsam ah inaan ku waayay walaalkay oo eedaday ay dhashay ana walaalkay ku waayay walaalkay kalena ku dhaawacmay ayaan maanta dambeeto miidiyaha waxaan ka dhahayay war nabad baan rabnaa war joojiyo waxa aad wadeen hooyooyin waxa jira saas oo kale taa ilmaha ay dhaleen iyo nimankoodii ku waayay haddana inta noolaa waxa la badbaado u baahan haweenka gobolka Mudug hal abuurka ah waxa isla qaateen inta nool badbaado u baahan intii dhimatay way dhimatay dagaalna wiila ku dhintay mooyo wiil kuma dhasho anagu la mid ma ahayn haweenada kaleeto oo waan soo gubanay aadaan u xanuunsanay dhibaatooyinka ay leedahay colaadu baan baranay markasta Cabdirasaaq waxaan ku leeyahay haweenka gobolka Mudug hadii la yiraahdo saameyn intee la eeg u geysatay iyo maxaa ka barateen hadii la yiraahdo wax meesha lagu soo koobi karo ma aha doomarsan tahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Gaalkacyo Samsam Maxamed Colaad wali barnaamijkeeni qaybihiisa dambe ayaan ku sii shaqeynaa xildhibaan Fallis Abshir Guuleed sida hore u sheegay waa xubin kamid ah xubnaha golaha deegaanka haweenka ee ku jira golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Galmudug waa maxay isla xisaabtanka xaqiijin kara kamid noqoshada haweenka ee goobaha go'aanka qaadashada ama ka gaarista go'aanada markaas loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo isla xisaabtanka lagu xaqiijin karo
haweenka doorka ka mid noqoshada go'aanka gaaridda horta marka u horeysa waxa weeye inay qoondada inkastoo qoonda yar loo asteeyay boqolkiiba 30 inay boqolkiiba 30 xaqiijiyaan golayaasha sidii golaha sare golaha shacabka golaha wasiirada golaha deegaanka wax walba qoonda ah inay xaqiijiyaan haweenku oo ay boqolkiiba 30 kood xaqiijiyaan markay xaqiijiyaan qoondada loo asteeyay inkastoo ay yar tahay waxa meeshaas ka imaanaya inay go'aanka gaarista dhan kasta ay ku jiraan sidoo kale waxay xaqiijin karaan gabdhuhu go'aanka gaarisada inay iyagu u diyaarsan yihiin oo aysan noqon 4 qofood oo haweenkii oo hadlaysa aysan noqon haweenka laftirkooda gabdhaha wax bartay haweenku meel kasta ay joogaan deegaankay ku nool yihiin ilaa may tuulo ahaato gobol ahaato degmo ahaato caasimad ahaato inay dad nool yihiin bashar jira yihiin mas'uuliyad ay saaran tahay mas'uuliyadda saaran dalka wax ka bedelkiisa waa mas'uuliyad dalka nadaafadiisa waa mas'uuliyad dadka nabadiisa waa mas'uuliyad horumarka dalku waa mas'uuliyad inaysan iska dhigin qof la leeyahay iyadoo intuu nin saaka u shaqo tago iyaduna waxba mas'uuliyad qaadi karin iska iyadoo inay mas'uuliyad saarto hadda sida gobolkan ku jirno degan oo kale sida badan dad us dhalay wada dhashay haddana colaad aysan ka marnayn oo markay ugu yartaa bishii markii la joogo qof la dilo xalna u baahan hadaa qofkaas la qabanin oo meeshaas xariga afkiisa la qaban ay tagayso in la isku baabao haweenku waxa loo baahan yahay gabar kasta guriga ay joogto inay nabadda maadaama ay cibaado tahay nabaddu danteedana ay tahay iyadoo ay nugushahay inay mas'uuliyad iska saarto kollayto inay inta sadii la helo way go'aanka gaarisyada dhan walba ay tahay siyaasadda nabadda wax walba ay tahay haweenku doorkooda way helayaan hadii intaas la helo aad mustaxila filis abshir guuleed ka soo qayb galeesha ama mas'uuliyiinta iyo haweenka nagula sugan dadwadagan iyaguna qaybta ka barnaamijkan hadii ay talo iyo tusaale ama su'aal naga weydiinayaan barnaamijka dadwadaga waa u furaya mikrofoonka gacanta ay taaganayaan diyaar baan u nahay runtii aad baan ugu faraxsanahay qaabka ay dood wadaagaas u sameeyeen waxaan u aragnaa qaab qaali ah dadka iyo dalkuna uu u baahan yahay sababtoo waxa weeye qofku markuu waayo arag yahay khibrad u leeyahay wixii soo dhacay ku dhex jiray ka dhex muuqday dareenkiisu wuxuu cabirahayaa wixii la soo maray wuxuu cabirahayaa meesha lagu socdo waxa ka horeeya wuxuu cabirahayaa waxaas haddaan laga hortagin waxa imaan kara sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inteena kaloo ka soo qayb gashay oo dhegaysanaysay inaanu ka tilmaan qaadano maskaxdeedna guuxa ku jira uu noqdo mid salkiisu uu yahay nabadda in la baadi doono runtii waa ku faraxsanahay annagu aad iyo aad baan ula dhacnay waxaan doonaynaa marka intaas oo loogala sii dhawaado waxaan dareemaynaa gabdhaha kala duwan ururada kala duwan bulshada ururka haweenka ah lug bay ku shaqeeyaan marar badan baa aragnaa iyadoo labada deegaan iskaga gudbahayo lug galmudug iyo Puntland sida hadda ii muuqatana weli waxaa moodaa lugtii iyo tansiilaad la'aantii inay ku shaqeynayaan hay'adaha ku shaqada leh iyo dawladda Soomaaliyeed iyo mid galmudug waxaan oran lahayn war tansiilaadka xaq u leeyihiin hala siiyo sida gobolada u gaaraan degmooyinka u gaaraan tuulooyinka u gaaraan meelaha markaas colaadu ka shidan tahay sababtoo ah way meesha colaadu ka jirto waxa colaada horinhaya ama wax qoriga sida waa rag isku batay karaan si u dhaxgalaan oo labada dhinac u mushaawirobaan mar walbana dabka ay u damiyaan sababtoo dabku wuxuu baahan yahay markuu shidmo intuu safaafin in la damiyo waa tahay qaybihii dambe barnaamijkeena dadwadaga ayaa nusla sii gaari doonaa maymuun cali nuur gefene gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug maymuun doorka ay hay'adda CBD iyo wasaaradda arrimaha gudaha ka qaadanayaan dadaalada nabadeed iyo kulamada ay gaalka ay ka wadeen oo dhan walba ay ku qabanayeen sidaad u aragtaan maxaase ka soo kordhaya isla dadaalada hay'adda CBD oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo ay ka haysay gaalkacyo horta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxaan dhihi karnaa waa wasaaradaha ugu muhiimsan wax qabad haday noqoto haday tahay dawlad dhiska iyo haday tahay nabad
fidinta iyo dayta nabad xoojinta aad iyo aad bay waxay kaga soo muuqatay dowlad goboleedka galmudug deegaamada dhammaantood ma filaayo inay jirto deegaan aysan ama gacantoodu gaarinin ama nabad aanay gaarsiinin ama aanay shaqo gaarsiinin aniga si gaara waa u mahad celinaynaa ururada haweenka haddaan nahay si gaara waxaan ugu sii mahad celinaa aniga waxaan ka mid ahay tiim isku xirka bulshada la dhahayo oo la dhaho IBN oo wasaaradda arrimaha gudaha ay samaysay oo maamul goboleedyada dhan ka tirsan yihiin ku midaysan yihiin waxaa ku midaysan koonfur galbeed hirshabeelle waxaa ku midaysan muxuu ahaayey maamul goboleedyada kale oo ku jiri jiray amana hadeertaan koley maadaama gaab jiro markaan oon saddexdaas maamul goboleed ayaa ku midaysan waxaa la dhahaa IBN waa tiim dal iyo dibadba ka shaqeeya oo shaqo qurux badan qabta waxaa kuu soo hartay hay-adda CBD boqolkiiba 1 milyan aan u mahad celinaa doorkeeduna banaanku yaalaa waxaan dhihi karaa hay-adda CBD waxay qabataa shaqo aanay qaban hay-adaha internationalka waanad ogtahay cabdirasaaq oo waad la shaqaysaa waxa ay qabataa wax yar ma aha ilaa hubyo ilaa muxuu ahaayey meel kasta hadda waxayba mudug iyo kaliya maahane waxay ka soo shaqaysay magaalo madaxdii ayay nabadaynta aragtay iyo gogol dhiga aragtay oo loo sameynayay beelaha reer galmudug ayay gogashooda wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxa isla wada CBD marka CBD waa u mahad celinayaa managerkeeda ugu sareeya Daawud Bishaar iyo dhammaan howlwadeenadeeda waxaan dhihi karnaa wax muuqda oo la taaban karo oo cad ayay u qabteen oo horumar ah nabadana door muhiim ay ka qaateen annaga haddaan ururada haweenka nabadda aniga afayeenka nabadaan ahay tiimka imaam xabiib gudoomiyaha nooga tahay gudoomiye Samson waa kamid iyo dhamaantood gabdhaha meeshan fadhiya badankood muxuu ahaayay hadda koor waxay noo sameeyeen xarun nabadeed waxay noo sameeyeen MCH dheheen soo dalbada adu markaan wax fiirnay istaalka qayb ka maqan ayaan cabirnay istaalka ayaan ku darnay waa qaybta hadda dhicisyada iyo ilmaha lagu koriyo hay'adda CBD ayaa noo dhistay waxay noo qabatay wax tiro badan tababaro tiro badan ay nasiisay oo hadda aan macnaheedu kaga faa'iideysano uguna faa'iideysano bulsho badan marka waxaan dhihi karnaa hay-aduhuna ha ku daysadaan CBD wasaaradaha dowlad goboleedka galmudugna ha ku daysadaan wasaaradda dowlad goboleedka galmudug ee wasiirka yahay mudane cabdi waayeel iyo howlwadeenadeeda aad bay u mahadsan tahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug maymuun cali barnaamijka dadwadaagga waxaa taabagelintiisa iska kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha galmudug hay'adda CBD barnaamijka dadwadaagga waxaa marti noogu ahaa gudoomiyaha ururka haweenka nabadda gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug xabiib maxamuud cabdi koofurow gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug galmudug maymuun cali nuur geyfane gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo Samson maxamed colaad iyo sidoo kale xildhibaanad Fallis Abshir Guuleed oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug guud ahaan barnaamijkeeni dadwadaagaha inta ayaan ku soo afmeeraynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh iyo barwaaqada nimca lagu qabooba inta naasir maano